Garoonkan waa garoonku ay ka qaadaan diyaaradaha ee ku yaala degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag. Garoonkan ayaa waxaa la sameeyay 1989 xilligii ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay sii burburisay, waxaana samaysay kambanigii lagu magacaabi jiray Western Geophysical Company oo qandaraasyada shidaal baadhista ka soo qaadi jiray. Kambanigii weynaa ee Kanoka oo markaasi ka baadhi jiray deegaamada Soomaaliya oo dhan 18 gobol ee Soomaaliya xilligaasi la isku oran jiray shidaalka ka baadhi jiray, waxaana soo fadhiisan jiray diyaaradda u sida shaqaalaha agabka kala duwan ay markaasi u baahan yihiin kana soo qaadi jirtay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Intaasi kadib ayaa garoonkan isticmaalkaasi ay kambanigu u isticmaali jiray ayaa waxaa uga dambeeyey hay-addii maxalliga ahayd ee lagu magacaabi jiray Agra Action oo Jarmal ahayd oo markaasi dadka ku nool deegaanka gobolka Sanaag u keeni jirtay qoodin oo u keeni jirtay raashin kala duwan oo agab walba oo raashinad leh. Isla sidoo kale waxaa garoonkaasi isticmaali jiray xilligii 1994 hay-addii kale ee maxalliga ahayd ee lagu magacaabi jiray Johannetir oo kala soo degi jirtay qalabka ceelasha iyo weliba qalabka beeraha markaasi loo intifaacsado ay kuna caawin jirtay dadka deegaankani degan. Intaasi kadib ayaa diyaaraddii ugu dambeysay ee soo cagadhigata ayaa waxay ahayd diyaaraddii sidee lacagtii shilin Soomaaliga ahayd ee 1000 shilin ahayd ee markii ugu horreysay la soo daabaco uuna soo daabacay xildhibaan Siciid Daahir oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ahna ganacsade ka mid ah ganacsatada Soomaaliya. Waa kuwan odayaasha oo maanta booqday garoonkaasi diyaaraduhu ay ka qaadaan ee degmada Ceelbu oo soo indheeyay sida uu garoonku xub baahan yahay kana soo shaqeeyay garoonkaasi muddo dhowr saacadooda, iyagoo la hadlaya maamulada dalka ka jira iyo weliba jaaliyadda gobolka Sanaag ugu baaqeen in garoonkaasi wax laga qabto ayaa waxa ay markaasi u sheegeen in dadkaasi ay si weyn wax ugala qabtaan. Salaan kadib maanta waxaan joognaa airportkii Ceelbu sheekayeen waqtiga ku sinaa maanta waxaan ku qabanaynaa dayactir weeyaan biyo baa ku soo furmay, dhir baa ka baxday, biyo baa faruuray. waxaanu qabanaynay hawsha iyada baan dhirtina waa ka gureynay, biyihii dhulkay ku soo furmeen waa ka xidhaynay. marka sidaa darteed waxaanu u sheegaynaa dadka u dhashay deegaankan dadka u dhashay iyo dadkii kale oo muxsiniina ee kala baxaya khayraadka waayo wadada meesha xoolo diyaaraddu fariisato oo dadka ka soo dego ajar baa ugu jira. marka waxaanu leenahay dadka u dhashay iyo dadka kaleba inay insha Allah tacaala meeshaas waxay u baahan tahay cagaf u baahan tahay oo dhirtii baa ka baxdo, dhirta cagafta aan loo baahan yahay, dayactir badan bay u baahan tahay. waxa weeyaan marka waxaanu rabnaa insha Allah tacaala in meesha iyada waxna la kala qabto hadaan بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وإدارة دجان كسناق مقالة علبو دجمة علبو. أنا وأمانة وحنبوقناي قرون كي لسميي واستثني سجال كي لسميي كان دولتي حسب ما كان الحين وسجال كدول دويد علي قرون كي بنبوقناي قرون كسب سبعيني بيه حوجة قلان كلي يدرس بكم علي كأنش سبعيني تبنا قرون كعن كهان ببحية haddaan wixii allo dalkaaga ka shaqeysan ciidan ku shaqeynayso ummaduna hay'adu waxay yiraahdaan wax qabso aan kula qabtay. marka waxaan doonaynaa adduunkan waxaan ku raacay asliga hawaa kan isku xiri jiray meel walba isku xiri jiray diyaarada ka shaqeyn jiray oo waa garanaya ku nool maamulkaas waxba kama qaban midna kama qaban maba ogaay laakiin anagu odayaasha waxaa maanta suuqnimi hadaa odayaasha deegaanka aan ka shaqeynay garoonka ka shaqeynay waxaan leenahay jaaliyadaha anagu u baahanahay u baahanahay cagaf baan u baahanahay aan ka shaqeysano in la ku caawiyo 1989 la bilay ama la asaasay garoonka isaga dhir baa ka baxday. gaadiid leedana waxaan farayaa gaadiid leeda u dhalatay geyiga kan ka dhigatay wadada airport ka dhigatay please ka taaya wadada biyaha u furina dadkiisana dhaawicina please dhulka inna kaale waxa ku furmay garoonka biyaha ku furmay waxa ku furmay
burburay oo birtii calanka waa la burburiyey waa la burburiyey waanu idin tusi doonaa iyadoo sawiran baanu idin tusi doonaa waa la burburiyey sababta loo burburiyey waxaan u malaynaya inay leeyihiin magaca ay isleeyihiin taagagii ama boosaskii loogu talagalay inay biyaha ka qabtaan oo biyaha galay garoonka birina waa ka baxday sidaa daraaddeed maanta waxaanu ka qabanay hawl baanu ka qabanay dhulkii biyaha waa ka xidhnay haddana waanu ka sii xidhi doonaa waanu idin tusaynaa annagoo ka xidhi doonaa qaybo ka mida ka xidhi doona ka sii xidhi doonaa inta yar loo hadhay ee ka sii xidhi doonaa waa idin tusaynaa dalkana waxaa wax ka qabsan karaa nin kale baa wax ka qabsan kara cid kale wax kuguma qaban karto hayd waxba kuma qaban karto nin kaloo meel uga yimina waxba kuma qaban karto horta marka u horreysa waa inaad adigu dalkaaga ogaataa waxaan leeyahay dhisay dhiga ha dhaafinee dhigay nabad iyo dhagaxa dhigay ayaa haatan u baahan garoon markaasi in lagu sameeyo dayactir waayo waxaana ka baxay dhir aad u yaryar iyo weliba dhir weyn waxaana markaasi ay haatan diyaaraddu haddii ay damacdo in ay maanta soo caga dhigato waxa u bannaan in badan oo ay soo caga dhigan karto diyaaraddu waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur degmada